iyo gabadha maanta walaasheed lagu hordilay iyadii la toogtay wiilkeedii la toogtay iyadiina lugta kolba mid la jarayo ee loo leeyahay $200,000 dawladda dhan ay ka bixin laadahay mar kasta oo gabadha la soo hadal qaado ilma kugu soo istaagaysa qof walba oo aadama ah inuu gabadha iyo waxa ku dhacay markaad eegto maalmo halkan ay dhakhtar la'aan ku joogto lugteedii buqbuqdo haddana loo waayo dayaarad yar oo la saaro oo mataqaana ambalaas waa carelessnimada ku tusinaysaa eeg hadda markay media ka maqlaan waxa laga yaabaa inay ka jawaabaan arrinta waa meel istusnimo waxaan ahayn oo ka shaqaynaysa iyo ka xoog badni cabsi gabadha walaasheed la dilay ee ceebtu ka dhacday ee iyadii mataqaanaa baasaboorka Mareykanka haysata ee caalamka dhan ka hadleen yaa halkaas sida ku noqonaysa dadka kale maxaad u malaynaysaa ee cidna inuu ogeyn arrintana waxay ku tusinaysaa kulan wacan wanaagsan idin ahaantiin baa daawadayaal ku soo dhawaada waraysi khadka taleefanka aan kula yeelanay Siraajo Aadan oo wax kaga weydiinay xaaladihii ugu dambeeyay ee ayaan Subcis oo la dhalatay marxuumadii Rabbi ha u naxariistay xildhibaanad Juweeriya Subcis oo si bareed ah loogu dilay magaalada Jigjiga caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida dhinaca kalena ilaa iyo hadda qoyskeedii qaraabadeedii iyo deegaanka Soomaalida aan laga siinin faahfaahin dheeraad ah sababta loo dilay Juweeriya cidda dilkeeda ka dambeysay iyo sidoo kale waxa uu mutaysan doono askarigii dilay ayaan Subcis oo la dhalatay marxuumadda ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya iyadoo maanta laga jaray cagta qaybtii u dambeysay dhinaca kalena la daraadhacaysa xaalada caafimaad oo aad u xun halka shacabka dowladdeegaanka Soomaalida ay su'aalo iska weydiinayaan sababta xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ay u dhaafin laadahay magaalada Addis Ababa gabadhaasi sidoo kalena ay ugu dir laadahay dhakhtar oo dhaama midkan hadda ay ku sugan tahay ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya xilli walaasheedna la dilay wiilkeedina lagu dhaawacay iyadiina maanta cagteedii qaybtii u dambeeyay laga jaray shacabka deegaanka ayaa su'aalo iska weydiinaya maadaama xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida ay balaayiin dhaqaale burburisa dhinaca kalena xaq iyo xuquuq lagu leeyahay shirkadda Ethiopian Airlines in gabadhani ay hesho goob caafimaad oo muhiim ah sidoo kalena lagu celiyo dalkeedii Mareykanka ehladeedina ay sheegeen in looga baahan yahay lacag ka badan $200,000 ee sidoo kalena aysan awoodin in loo kireeyo diyaarad ambalaas ama diyaarad gudaha dhakhtar iyo caafimaad ku wadata maadaama aysan fuuli karin diyaaradaha kale caadiga haddaba amuurtaasi waxaan wax ka weydiinay Siraajo Aadan oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha bini'aadantinimada waxaan ka weydiinay xaaladihii ugu dambeeyay ee ayaan Subcis iyo sidoo kale xaaladeeda caafimaad meesha ay maraysa dhinaca kalena baaq u diray bulshada Soomaalida ee Siraajo soo dhawow bal gabadhaasi iyo xaaladeeda iyo halka ay ku sugan tahay bal warbixin naga sii maadaama aad waxa weeye inta badan indhaha ku haysay sidoo kalena aad sheegtay inaad la xidhiidhay qaybo ka mid ah ehelkeeda bismillaahir rahmaanir rahiim وهرين waxaan salaamayaa shacabka Soomaalida su'aashaas gabadha ayaan Maxamed Subcis runtii arinta maalmahan oo dhanba waa la wadwaday waa la sheegayay maalina war farxadii kama soo yeerin gabadhaasi wadanka markay timidna farxad maynan ugu imanin maalintii ugu horeysay wixii aad weyd baa ku dhacay marka guud ahaan mar kasta oo gabadha la soo hadal qaado ilma kugu soo istaagaysa qof walba oo aadama ah inuu gabadha iyo waxa ku dhacay markaad eegto 20 sano wadanka ka maqnayd maalintay timid ehelkeedii iyo wadankeedii way ka soo degtay oo u xiisay oo mataqaanaa ay farxad la timid waxa ku dhacay garoonkii dawladda Ethiopian Airlines gabadhu mayna ka degin wadan jabhada haystaana mayna u soo kicin garoonkii loogu ilaalinta badnaa bay ka soo degtay Ethiopian Airlines deegaankeedii walaasheed baa lagu hordilay iyadii baa la dhaawacay wiilkeedii baa sidoo kale la dhaawacay isagana gabadha markaa waxa ku dhacay laba arrimoodba mentally iyo physically ba gabadhaas way u burburtay waxa ka daran haddana imika haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo kolba tan ugu dambaysa ya unba ugu daran ya gabadha wixii soo dhacayba hadda maanta nimo lugta waa la jaray misigta lagu simay maalintii horena waa la qalay 3 jeer baa la qalay dhibka ugu weyn waxa weeyaan muddo dhan bay gabadhu halkan taalay oo lugtii buqbuqday dhakhtarkan hadda ay taalo waan garanayaa waxa la yiraahdaa NMC waa Norwegian Medical Center waa isbitaal fiican haddii gabadha maalintiiba lala carari lahaa oo ay mataqaanaa ambalaas iyo waxun la saari lahaa maanta tani ma taagnaateen muddo halkan markaa gabadhu dawla'aan ku noqotay ka bacdi heer aan waxba laga qaban karin bay iyadiina gaadhay hadda kharashka gabadha ku baxa ee dawada iyo waxa iyo deegaanka bixiya laakiin waxa noocaasihi
waa wax qof bili-aadmi oo kaleba oo caadiya uu iska bixin karo. gabadha intaan arkeen masiibiha ay ku dhacday ee dowladdu garoonkeedii lagu dilay ee askarigeedii dilay ee Ethiopian Airlines la socotay ee dowlad deegaankeedii Soomaalida caasimadiisii lagu dilay intaasoo dhan intay isu tagaan oo xitaa bal wax kale iska daayay maalintii hore waa kii la orordayay markii gabadha meydku ay taalay waa kii la orordayay ee mataqaanaa wuxuu la ordayay waxay ahayd dowlad wax laga fili kara intaasi ma ahee gabadhan waxay ahayd markiiba in wadankeedii loola ordo oo Ethiopian Airlines lama saari karo qof dhaawac ma qaadaysa dayaaraddu. hadda dhibka ugu weyn markaa waxa weeyaan gabadhii maskaxiyan waxa aragtay baa ku dhacay oo goobjoog u ahayd haddana qof muddo dheer qurba joogay oo waxa sortiisa uu ka dhacay mid maskaxdeedii waa nooca physicalina jidahanteediina waatan intaasoo xabadood baa ku dhacay lugteediiba maalinba qayb la jaraya lug dhanba ilaa misigta sidaa ku weyday. hadda dhibka ugu weyn markaa waxa weeyaan ee loo baahan yahay haddii dowladdii gabadha dishay ee garoonkoodii lagu dilay ilaan dowladdu garoonku waa meesha ugu amnisan abiyi sida loo ilaaliyo si lamid un baa loo ilaaliya halkan askarigeedii baa dilay marka waa ceeb dowladda saaran haddana waa ceeb deegaanka sii saaran haddana waxaasoo dhan oo miiryaha laga sheegay dadka ka damqan lah waxay ahayd bal ataliisti aadami ahaan inay isara ititibiyaanoo maanta gabadhaas baa u baahanba dhakhtar oo air ambulance loo raadinayaa wadankii Mareykanka ka timid dib loogu celiyo bacdama ay ka adeeg fiican tahay inaynu maqallo maba ahaynba ceeb bay ku tahay ceeb weyn bay ku tahay tan federaalkay ku tahay Ethiopian Airlines bay ku tahay xitaa oo garoonkeedii diyaaraddu ay la socoto lagu dilay protection iyaga mas'uulka dadku garoonka markuu ku jiro gooniyan si khaasa haddana tan dowlad deegaankay ku tahay haddana Soomaalida ceeb ku tahay tii federaalka ceeb ku tahay haddii maanta marka la leeyahay gabadhii waxa loo raadinayaa 200,000 yaa loo baahan yahay oo air ambulance 200,000 maanta deegaankeena waad garan kartaan wax qof shacab uu bixin kara ma aha waa wax qof shacabana ku weyn dowladna ku yar haddii dowladdii ay ka gaabsatay marka Soomaali meel kasta ha joogto waxa loo baahan yahay gabadhaas in loo duceeyo inuu Ilaahay caafiyo oo sibay dhaantaaye hadda iyada mataqaanaa lafaheeda muhiima in 5 nin oo ganacsata ah ku filan oo bixin karta 10 baa kala qaybsan karta haddii dowladdii ay sidaa tiro ay ka gaabsato tiro anagu dawooyinka yarar iyo isbitaalka yarun baan bixinaynaa waxa loo baahan yahay in gabadha la amba bixiyo wadankeedii la gaarsiiyo dayaaradda air ambulance kharashkeedii laga bixiyo kuwani way buush garayn karaan dowladda garoonka Addis Ababa iyo isku wada taagtaagan yihiin waa ceeb waa wax xaalad bini'aadminimada ka baxsan weeyaan maalin walba intaasoo kharashay ku ciyaaraan oo meel ugu kacaan oo qof loo diraa ceebtii iyagu ay geysteen dhibkii iyagu ay geysteen hadday xitaa mayna garanin xitaa war gabadhii mataqaan xildhibaanadii gabadhii walaasheed waa la dilay iyadii waatan wiilkeed waa la dhaawacay kuwii kale waa sidan bal hawshan aynu iska soo afjarno oo sii socodkeeda maalin walba gabadhii laga soo cabaadayo xitaa ma xishoonayaan waxaynu u baahannahay markaa oon hadalka ku soo gaabinaynaa gabadha ha loo gurmado aad marka la soo hadal qaaday aad u damqanaysaa waan aad baan uga naxay maanta sawirkeeda markaan arkay lugtii misigta lagu gooyay mar saddexaadkii iyadu markaa dareenkeeda waxay ku badqabi lahaydun oo isleedahay meeshaadii haddii lagu geyn lahaa lugtana laguma jareen waxyaabo badan ba isdhihi karta marka inagu bal gabadha Soomaaliyay waxaan u baahannahay in loo gargaaro oo qof duca qaata magac qaata xil mataqaanaa soo xil furta dadkan yaa loo baahan yahay gabadhan ehelkeeduna ma awoodi karaan cid kaloo maanta $200,000 meeshu maray waad ogtihiin dowladdii qasnadeeda ka bixin lahaydna bal dhibaatada jirta may kala qaybsadaan xitaa haddayna qasnada ka bixinayn 5 nin oo mas'uulo oo kala qaybsada ma la waayo
waxyaabo kaloo khiyaaliya imika hadda markaaba waa la kala qaybsan lahaa laakiin bacdamaa gabadhan miskiinta walaasheedna la dilay iyadiina ay sidaa tahay cid si daba socota wax mataqaanaa alla kacabsi oo meeshii yaallana ma jiro waxaan waa dad ilaahayna aan ka cabsanaynin sharci la xisaabtamayo ka cabsanayaan una jirin magacna aan doonaynin ya oon adduunkan laftiisa xitaa intay joogaan magaca rabin iyo sharaf sidaa darteed mar labaad waxaan ku celinaynaa gabadha in la caawiyo oo la helo dad Soomaaliya oo magac iyo sharaf iyo duco iyo ajirba qaata oo kharashka diyaaradda ka bixiya 200 rabbi caafimaad sare ah siiyo walaasheen ayaan subcis oo xaalad caafimaad oo aad u halis ah ku jirta dhinaca kalena isbitaal magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku yaala ku jirta bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in gabadhaasi wixii tabar iyo taaga ay kaga qayb qaadan karaan xaaladda caafimaad ay ku garab istaagaan sidoo kalena ay u soo duceeyaan meel walba ay joogaan tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan lamida waxaan idin kaga tagaynaa sidaas nabadgelyo.